bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan halkan waa janalka toosanow miidiyaad uga barateen wararkii soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka ugu doorqaroona waxaa ka mid ah midowda musharaxiinta oo war cusub ka soo saaray wadahadalada rood leh turkiga oo saldhig militari ku wareejisay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda federaalka oo ka walaacsan go-aanka madaxweyne Joe Biden. qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena caawa ku soo dhawaada. afhayeenka midowda musharaxiinta Daahir Maxamed Geelo oo war qoraal ah soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba wadahadalada ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble. Daahir Maxamuud Geelo ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin ka musharax ahaan inay sii socdaan wadahadalada labada dhinac si xal looga gaaro doorashada dalka. Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in khilaafka ka jira dalka kaliya lagu xalin karo wadahadal iyo in la isugu yimaado miiska si fool ka fool ah. Musharaxa ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in arrinta taagan aan lagu xalin karin fagaaro kale loona baahan yahay in la sii wado dadaalada socda iyo wadahadalada. annaga oo ka duuleyna mabaadi'deena ah in arrinta Soomaaliya ay tahay miis ku dhamaato oo aan fagaaro kale lagu xalin karin, waxaana soo jeedinayaa in ay sii socdaan wadahadalada ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowda musharaxiinta si arrimaha murugsan ee Soomaaliya xal waara looga gaaro, ayuu yiri musharax Geele. Si kastaba hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo oo shirkii ugu dambeeyay ee musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku soo dhamaaday fashil kadib markii la isku mari waayay qodobada qaar ee miiska la soo saaray. Sida lagu baahiyay bogga Twitter-ka ee wasaaradda gaashaandhigga dalka Turkiga, dowladda Turkiga ayaa xero militari oo muhiim u ah ku wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya. Wareejinta saldhiggan waxaa lagu sheegay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga Turkiga inuu fursad hor la siinayo dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, iyadoo qayb ka ah dib u habeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Xarumihii koowaad ee Turkiga ka dhisay Muqdisho waxaa lagu wareejiyay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baahiyay bogga Twitter-ka ee wasaaradda gaashaandhigga dalka Turkiga. Xeradan militari ee Turkigu ku wareejiyay dowladda Soomaaliya sida ku cad qoraalka waa tii koowaad oo ay ka dhisteen Soomaaliya, waxayna hadda ciidamada Soomaaliya ku tababaraan xerada Turkisom oo ku taala inta u dhaxaysa xeebta Jasiira iyo caasimadda Muqdisho. Ilaa hadda Turkigu wuxuu Soomaaliya u tababaray qiyaastii 5,000 oo askari, wuxuuna qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 15,000 ilaa 16,000 oo askari, kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. In dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen dhismaha ciidanka tiro ahaan intaa dhan waxaa horey u shaaciyay safiirka Turkiga ee Soomaaliya. Xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ayaa gaaray heer aad u wanaagsan tan iyo markii uu madaxweyne Erdogan sanadkii 2011 booqashada ku yimid Muqdisho, xilligaasi oo xaalad adag oo dhan kasta ah ay ka jirtay dalka, waxayna booqashada Soomaaliya ku soo jeedisay indhaha caalamka. Wixii sanadkaasi ka dambeeyay, labada dal waxaa u bilowday iskaashi ay ka sameeyeen dhinacyada militariga, caafimaadka, waxbarashada, diblomaasiyadda iyo dhinacyo badan. Turkiga wuxuu Soomaaliya ka caawiyay gargaar toos ah, sidoo kale wuxuu dhisay iskuulo, isbitaallo iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha sida jidadka, dekedda Muqdisho iyo garoonka Aadan Cadde. Kheyro oo markii ugu horeysay ka hadlay sababta ay isku khilaafeen madaxweyne Farmaajo. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay sababta keentay inay iskhilaafaan isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taa oo keentay in Kheyre xilka laga qaado. Waxa uu sheegay in la isku qabtay aan qabanno doorasho xalaal ah oo aan ciidan iyo xildhibaan musuq lagu soo xulay aan lagu boobin. Waxaan aad maqlaysaan ee la isku haysto wax kale maaha, waa ma doorasho cadaalad ah ayaa dalka laga qabanayaa mise doorasho boob ah. Anigu waxaan u taaganahay Soomaaliya oo soo ceshata sharafteedii, waxaan rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed
si dhalinyaradu usoo doorato qofka hoggaanka u qabanaya, ayuu yiri Mr. Kheyre. Sidoo kale waxa uu sheegay in kaliya uu kasoo horjeedo in dalkan ay ka dhacdo doorasho aan xalaal ahayn oo la boobo. Waxaan kasoo horjeedaa doorasho boob ah oo askar inta meel la geeyay ay codeeyaan ama xildhibaano xoog lagu soo xushay. Anigu waxaan u taaganahay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadka oo dhani ay isla wada ogol yihiin. 25kii bishii Julaay sanadii tagtay ayaa Xasan Cali Kheyre xilka looga qaaday kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada Golaha Shacabka kadib markii ay arrimaha doorashada isku khilaafeen asaga iyo Madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar uu ku tagay Nairobi ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo abaaraha. Maxamuud Sayid Aadan ayaa marka hore shirkiisa jaraa'id uga hadlay ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2021 wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in xal loo raadiyo caqabadaha iyo culayska siyaasadeed ee hortaagan qabsoomidda doorashooyinka. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Jubbaland ay diyaar u tahay inay qaadato doorkeeda haddii la isugu imaanayo wadahadallo dhab ah oo xal midaysan looga gaarayo khilaafka jira. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa soo hadal qaaday abaarta daahsan ee ka jirta deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Gado, isagoo shaaca ka qaaday in abaartu ay saameysay dadka iyo dunyada oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. Maxamuud Sayid Aadan ayaa sidoo kale qoysaska ay saameysay abaarta u weydiiyay hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo caawin karta inay u gurmadaan dadkaasi. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalado adag oo isbiirsaday sida khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka 2021, abaaraha iyo ammaanka dalka. Shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hab cusub u dhacaya iyo madax kusoo wajahan magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ee haatan inaga soo gaaraya dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegaysaa shirka doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho oo ay gadaal ka riixayso xubnaha beesha caalamka. Shirkan oo dhowr jeer oo hore u baaqday ayaa haatan ku dhacaya dadaal ay beesha caalamku ugu jirto sidii dhinacyada isku haya doorashada dalka ay miiska wadahadalka isugu imaan lahaayeen isla markaana loo dhammaystiri lahaa heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay. Xogaha wararkan aynu ku helayna ayaa waxa ay sheegayaan in toddobaadkan gudihiis ay Muqdisho soo gaari doonaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada kuwa oo hadda ka maqan. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo markii hore si cad u diiday casuumaadda Madaxweyne Farmaajo ayaa hadda la sheegayaa in beri iyo maalinta xigta ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho. Shirkuna uu ka dhici doono gudaha xarunta Xalane oo iyagu ay dalbadeen in lagu qabto. Si dhab ah weli looma oga cidda sida rasmiga ah garwadeen uga noqonaysa shirkan maadaama maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ku gacan sayreen shirar uu horay ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Beesha caalamka ayaa iyadu dadaal badan ku bixinaysa sidii ay isugu keeni lahayd dhinacyada isu haya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa xusid mudneed in horay ay u guuldareysteen shirar ay isugu keentay madaxda Soomaalida mana cadda natiijada kasoo bixi doonta shirkan. Wararka ayaa intaa ku sii daraya in shirka ay ka baxsanaan doonto filo Soomaaliya oo uu horay ugu dhacay shirkii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo maamulada dalka maadaama madaxda Puntland iyo Jubbaland ay ka muujiyeen shaki la xiriira ammaanka. Waxaa weli xaalad cakiran ku jirta Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka oo ay ku hareeraysan yihiin oo ay ku hirdaaman yihiin dhinacyada isu haya arrimaha doorashooyinka iyadoo muddooyinkii dambe laga dayrinayay xaaladda ammaan ee Soomaaliya caasimadda kadib iska hor imaad dhamaadka bishii hore dhex maray dowladda iyo mucaaradka. Intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum.